السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي كلنتي وعن مركز سود وهذا وشانل كي دكتور صدام حسين ما أنت وحندين وضع وما حي سببها كدم بيه جوده مركز يجورسته وكيني كرر إن إمارة ميزان كده وقدر سم مركز هرو جبر عادي بيهاد ومارة ميزان كده إسكنوم الله أو قياسه لكن مركز جبر يجورسته كدب وما وحيلها كدم بيه أو كيني كرر جبراني إني ميزان كده ولا بجبار ونقضه وقبدي سيدي واجي أخرى أهد أين أهن ساعدني أي كورستي ما أنت وحيلها إن لو ذاك دونه وأفر شيء أفرتني شيء وحكوا كوبيني هين قبضة نولشة يو نخمذا أي قبضة ماركتي أي سميسو وحلقة أي كورستي كدي المهم كهرا أنت أروسك أي قالين قبضة وحاجة كنت داشة إني ماركتي جيم كي أدو سيدي ويت كي إكسس كأها ويت كي ميزان كي قدر سنة إني إسكندرينتو سيدو كلا إني ماركتي جير كيدي هالكي أي كرب أما أي كربتو أي جارسيسو أما ميزان قياسه أي جارسيسو لكن waxa meesha ku jira ayaa ah arinta meesha ku jirta ayaa ah gabar walba waxay ka fikirtaa pre-wedding maaragtay weight-ka si intay guursanin weight-keeda in uu qiyaas oo ahaado laakiin marka aad guursatid waa maxay sababta ka dambaysa weight-kaaga inuu ku darsamo hadaba video-ga nala dhamayso waad fahmi doontaa afarta shay aan halkan kugu sheegi doono waxyaalaha aad ka sameeyni kartid waxyaalaha isbedel ah iyo sababaha ku keenayo in ay maaragtay weight-kaagu uu ku darsamo xilliga aad guursatid kadib ilowin channel-ka subscribe like and share-ka maadaama channel-ka idinka buu idinku socdaa hadduu idinka aan ahayn ma socon lahayn channel-ka arrinta ugu horreysa oo listigani ugu horreysa afartan shay ugu horreysa ayaa ah gabadha xilliga ay guursato kadib waxaa dhacaya diet-keeda ama cuntadeeda in ay isbedesho ama isbedel oo dhanka cuntada ah oo la soo gudboonaado gabadhi haddii marka ay tani ay dhacdo gabadhii waxaa dhacaysa cunadii hore ee qaadani jirtay ee jirkeeda ay ku ilaalin jirtay in ay bedelmaan sida cunada keto-ga loo yaqaano keto-ga waa maxay cunada ay sokorta ay ku yar tahay oo diet plan-ka ah oo wanaagsan oo maaragtay jirkeeda markii hore ay gabadhii ay ku ilaalinaysay laakiinse xilliga ay guursato kadib gabadhii waxaa kusoo ziyaadaya in ay cunooyin kala duwan ee cunto xilligaasi cunooyinkani kala duwan waxaa u badnaani kara waxa loo yaqaano sokorta sokortani waxay keenaysaa inay maaragtay ama waxa macmacaankii u badan yihiin inay gabadhii ay cunto sokortani marka ama macmacaankani waxay ku keenayaan inuu jirkaaga uu wada bedelmo oo weight badan uu kusoo koro oo maaragtay weight-kaaga ama miisaankaagana uu ku darsamo arrinta labaad oo listiga afartan shay ka midka ah ayaa ah waxa loo yaqaano gabadhii priorities-keeda baa change gareysmay priorities waa maxay marka muhiimadii ama maaragtay waxyaalihii muhiimka ahaa nolosheed muhiimka u ahaa ayaa change gareysmay ama isbedel baa la soo ziyaadayo dhanka waxyaalaha muhiimka ah iyo waxa muhiimka ah waxyaalahan muhiimka ah sida maaragtay gabadhii gym-kii bay aadi jirtay markii hore ama exercise bay sameyn jirtay ama maaragtay nolosheedii way ka warhaysay laakiin se hadda mas'uuliyad cusub baa gabadhii soo koraysa mas'uuliyadani cusub kula soo gudboonaanaysa marka maxaa la imaanaya mas'uuliyadani oo la imaan kara mas'uuliyadani waxaa la imaan kara cunno walba inaad qaadatid cunno walba aad maaragtay markii hore aad iska ilaalin jirtid aad cuntid sidoo kale waqtigii aad maaragtay gym-kii ama waxyaalihii kale noloshaadii aad ku ilaalin jirtay ay isbedelaan oo maaragtay reerkaagii uu muhiimada u noqdo tani waxay keenaysaa marka adiga in nolol ahaan in aad meeshii aad ka baxdid aad islowdid gym-kii ayaa meesha ka baxaya noloshii hore oo gabarnimadii aad ku jirtay oo idil way isbedelaysaa tani marka mas'uuliyad cusub markay kula soo ziyaado waxay keenayaan in maaragtay noloshaadina ay wax ay ka bedelmaan sidoo kale gabadha waxaa ku dhacayo maaragtay xilliga gym-ka inuu bedelmo cunooyin kala duwan in ay kariso maaragtay horaan ay u qaadanaynin iyo waxyaalo oo saliid u badan tahay in ay cunto xilligan waxyaalahan iyo idil waxay ku keenayaan marka in aad jirkaagii miisaankii uu ku darsamo arrinta saddexaad waxaa waayo listigani ka mid ah oo maaragtay maanta halkani kula wadaagaya ayaa ah waxa loo yaqaano stresska gabadha haddii once nolosheedii uu stress kusoo ziyaado ama uu stress kula soo ziyaado waxaad noqonaysaa in aad maaragtay weight-kaagan uu ku darsamo why marka sababta ka dambaysa waa maxay stresska inuu weight-kaaga ku daro jirkaaga waxaa jirto dhacaamo ama hormoono loo yaqaano stress hormoneska loo yaqaano stress hormoneskani way kala duwan yihiin oo jirka siyaabooyin iyo noocyooyin badan buu usoo sii daayaa laakiinse xilliga aad guursatid waad og tahay ama qof walbo xaas ah way og tahay in aad nolosha ay dhanka macaan kaliya ay jirin ama dhanka wanaagsan kaliya inay nolosha ay ahayn
marna ay kula soo ziyaadayo dhibaatooyin, marna maaragtay dhanka familkaaga iyo dhibaatooyin kaaga soo ziyaadaysa ama ay kula soo darisayso. waxyaalahan iyo idin maxay ku keenayaan marka inuu stresskaaga uu ku tarsamo, maskax buuqaaga uu ku tarsamo, ama adiga aad isla hadashid. dadka qaar waxaa dhacaysa marka ay stress uu soo galo in noloshoodii ama miisaankoodii hoos ugu dhaco, dadka qaarna inuu miisaankoodii uu ku darsamo. marka waxyaalaha kamidka ah gabadha markii ay guursatay inuu miisaankeedii uu ku darsamo, waxaa kamid ah inuu stress levelkaaga uu ku darsamo, uu zaaid uu yahay, uuna ku darayo miisaankaaga. sababtan waan ka hadlay maaragtay stress hormoneski ayaa ku darsamaya. arrinta labaad oo miisaanka ku daraysa oo dhanka stresskaaga imaanaysan waxaa waaye dumarka qaar markay stress yihiin cunooyin badan bay cunaan, cunto cunistoodii baa badanaysa. ugu dambeyntii arrinta afraad ayaa ah oo listiga ugu dambeysa oo ku keeni karta miisaankaaga inuu ku darsamo marka aad guursatid kadib, haddii aad qof xaas ah tahay. waxaa waaye waxa loo yaqaano xiriirka ka dhexeeya jirkaaga, maskaxdaada iyo emotionalkaaga ka dhexeeyo ayaa maaragtay ku keenaya in uu miisaankaaga uu ku darsamo. waa maxay marka xiriirkani waxaa waaye biological maaragtay brainkaaga, jirkaaga iyo emotional stabilitygaaga inta ka dhexeyso ah. marka saddexdan shay maxay noqon karaan? waxaa waaye waxa loo yaqaano chemistryga oo jirkaaga ka dhex socdo idil wax ku keenaya waxaa waaye waxa loo yaqaano hormoonka oxytocinka. hormoonka loo yaqaano wax sababooyin badan, shaqooyin badan buu leeyahay, laakiin halkani muuqaalkani shaqadan uga hadlaya hormoonkani uu leeyahay waxaa waaye hormoonkani waxaa loo yaqaanaa love hormoonka oo jaceylka ah. marka maxaad isweydiisaa sababta waa maxay hormoonkani loogu yeeray love hormoonkani sidiis waxaa waaye jirkaaga marka uu nasasho uu helo oo reyn badan aad heshid, farxadda ay jirkaaga ka badato, waxaa dhacaysa hormoonkani inuu jirkaaga ku bato oo waxaani idil uu keeno. sababtani darteed ayaa maaragtay gabadhii inay peaceful mind ay hesho, maskaxdeeda ay degan tahay, buuq la-aan, stress la-aan ay tahay. sidoo kale arrinta kale oo hormoonkani ku keena waxaa jirkaaga nasasho buu siinayaa, wanaag iyo maaragtay farxad ayaa kaa muuqanaysa. tani marka jir ahaan muxuu keenaa? maskaxdaadii hadday hormoonkani uu soo siidayo, emotionally haddaad faraxsan tahay oo maaragtay qof faraxsan aad tahay maanta idil oo maaragtay reyn ay kaa muuqato, jirkaaga marka maxaa ku dhacay? jirkaaga bodygaaga wuxuu keenaa ama biologically waxa jirkaaga ka dhacay waxaa waaye in uu miisaankaaga uu ku darsamo, uu weigtkaaga uu ku darsamo. marka arrintani ayaa loo yaqaanaa biological brain iyo emotional effectiga wax loo yaqaano. biology brain emotional effectiga wax loo yaqaano ayaa tani ah. waxaani idil waxaa ka dambeeya oxytocinka hormoonka loo yaqaano. asxaabi, waxaa soo gaarnay gabagabadii iyo gunaanidka barnaamijka. fadlan ha ilaawin meel walbaad joogtid channelka inaad subscribe, like and share aad saartid. waxaan idin rajaynayaa reyn farxad iyo wanaag insha allah. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.